Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha badan oo meel kasta aad dunida ka joogtiin waa idin salaame. Salaan gacaltooyo. Maasha Allah. Maanta waxaan idiin wadnaa kalluun iyo bariis. Kalluunkeena waa qiyaastii waa 1 kiilo. Insha Allah waa xawaaji caadiga xawaaji kaari, maraq digaag, huruud iyo kabsar caleen waa insha Allah. Waxaa kaloo ku darsan doonaa 2 qaando oo saliid saliida guriga ku taalo insha Allah. 2 qaando ayada ka isticmaali doona insha Allah. Waxaa kaloo ku dareynaa jeex liin dhanaan si aad tasti noogu sameyso insha Allah. Aniga filfil ma isticmaali doono. Xawaajiyaasha basbaas leh insha Allah. Waxaa kaloo ku darsan doonaa ukun, 1 xabo oo ukun insha Allah. sidoo kale waxaan kaloo ku darsan doonaa 2 qaando bur insha Allah. maanta malaay kalluunkeena sidaan u sameysan doonaa. intaan isku qaseynaa waxba biyaha ma ku darin. intaan isku garaac si fiican isku garaac insha Allah. haddii kale dheecaankii dhan meeshuu kaaga hari doonaa insha Allah. adeegiisa si fiican iskugu dhexgeli. maasha Allah waa kaya waxba ma ku darin sigii is dhexgeliye insha Allah. kalluunkeena ku darsan doonaa ama marin doonaa. qiyaastii kalluunkan waa 1 kiilo oo malaay saas oo marmarinayna kulli insha Allah. muhiimadeena waa kalluunka sida loo sameeyo sida u sameyn doonayna isla aragno insha Allah. ahamiyadiina taas waaye. marka asiga dhan saas oo marmarinaysaa kor iyo hoos. markii koo qasaysid waxa isleeyahay waxa inta amu kala gaari waaya camal. laakiin maasha Allah wuu kala gaari doonaa. asla arki doonaa. kalluunkinkii biyaha ina ka miirtid laga rabaa si uu biyo lahayn wax lahayn inaad ku shubtid. waa kaya wuu isku dhamaaday asigi dheecaankiiba. kana baaquligiisa ku dabooleen doonaa insha Allah. marka waxaa laga rabaa inta hoosh dhan bilaabin inaad ku dabooshid ugu yaraan nus saac ku daboolnaado ama 1 saac in ka badan oo dheecaanka si jirka dhaxda ugu galo insha Allah. waa kaas meesha ku dabooleena meesha iska dhigayna insha Allah. kana hadane baradhada sii duwaneena daqiiqado badan ka soo wareegay ma aan isku xigaan insha Allah. hadana waa kana kalluunkeeni oo isdhexgalay oo cabaar iskugu jiray insha Allah. waa kana taawadeeni noo kulul baradhadii ka bixinay waa kana gilgilinay insha Allah. labada dhinacba guduud ka noqon doona. dhinaca koowaad waa kaya hadana dhinaca kale u gudinayna maasha Allah. saas uu noogu soo baxay kalluunkeeni. hadana waa kana bariiskeeni insha Allah. basasha 1 xabo oo qiyaastii yar waaye. bas xoogaa yar ku shiileena. hadana maraq digaag iyo cusbo iyo xawaaji kabsar caleen heel iyo qarfo waaye insha Allah. karaal ahaada hergaba magaalada wareegayo. hergabka codka inuu iga xiran yahay moodaa insha Allah. hadana waa kana bariiskeeni oo cabaar biyo aan la dhignay biyaha ka soo miiray. ku shubnayna bariiska waxa fiican inaad biyo la dhigtid cabaar inuu biyo oo la dhigaa fiican. markaa nadiifisid biyaha ugu dambeeyo oo cadaanka dhanka oo biyaha ugu dambeeyo inaad cabaar uu la yaala fiican kadibna ka bixisid oo ka qalajisid maasha Allah. haduu macaan ku noqonaa insha Allah. hadana insha Allah waxa ku shuban doonaa maraq oo ii diyaarsanay waaye oo soo karkariyay oo maraq hilib si tasti oo macaan oo noogu noqdo. biyo badan xataa kuma darin waa ka maasha Allah. bariiskii kalluunkii saan noogu soo baxay maasha Allah. yacun calaanj caloosh igeyle waaye. kana hadana saxanka ku diyaarin doonaa insha Allah. daawadayaasheena qiimaha badan oo
insha Allah waxaan rajeynaynaa subscribe ku nuga caawin doontiin like ta share ta insha Allah inta aan markale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa kheyr iyo nabad هنا سبسكرايب نو سارتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.